madaxweynaha Puntland Said Abdullahi Deni ayaa maanta magaalada Garowe ka daafuray kalfadhiga 48 golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay inta badan xildhibaanada baarlamaanka Puntland oo maalmihii u dambeeyay ku maqnaa fasax. Gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa uga mahadceliyay xildhibaanada sida ay kulanka uga soo wada qayb galeen. Waxa uu ka sheegay waxyaabihii uu qabsoomiyay in goluhu ay hor yaalaan anjadiyaal dhowr ah. waan idinka mahadnaqayaa sida wanaagsan ee kalfadhiga aad uga soo xaadirteen ee aad looga soo wada qayb galay dhammaantiin mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin ka mahadcelinayaa ka soo qaybgalka aad nagala soo qayb gasheen munaasabadda furitaanka kalfadhiga 48aad ee golaha wakiilada oo maanta oo taariikhdu tahay 15 Juun 2021 halkan inooga furmi doona kalfadhiga 48aad waa waajibaad dastuuri ah oo goluhu ku gudanayo shaqooyinkiisa ay bulshada wakiilada uga yihiin waxaana golaha hor yaala ajandayaal muhiim ah oo ku aadan dhinacyada xeer dejinta matalaadda dadweynaha iyo ku joogtaynta hay'adaha dowladda mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin anigoo ka faa'iideysanaya munaasabaddan waxaan idin la wadaagi doonaa waxqabadkii kalfadhigii 48aad oo ah kalfadhigii ugu waqtiga dheeraa golaha waxaana uu socday 25 Oktoobar 2020 ilaa 17 Abriil 2021 taasoo ay sabab u ahayd dib u dhicii ku yimid nidaamkii doorashooyinka heer federaal oo goluhu rajaynayay inuu doorkiisa ka qaato muddada aan kor ku soo xusay ee uu socday kalfadhigii 48aad waxaa golaha wakiilada u qabsoomay ansixinta 5 xeer oo muhiim u ah dalka kuwaas oo kala ah 1 xeerka dugsiyada quraanka kariimka 2 xeerka ilaalinta afka Soomaaliga 3 wax ka bedelka xeerka isgaarsiinta Puntland 4 ansixinta miisaaniyadda 2025 iyo xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha Puntland. Madaxweynaha Puntland Said Abdullahi Deni oo khudbad ka jeediyay kulanka ayaa warbixin guud siiyay golaha xaaladihii u dambeeyay ee deegaanada Puntland iyo heshiisyadii Muqdisho ay ku kala saxiixdeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ee heshiiska loo gaaray arrimaha doorashooyinka dalka. Sidoo kale madaxweyne Said Abdullahi Deni ayaa golaha wakiilada waxa uu warbixin ka siiyay dhaqaalaha Puntland iyo halka uu marayo waxauna aad ugu nuuxnuuxsaday dhibaatada ka taagan isticmaalka shilin Soomaaliga ee ka taagan deegaanada Puntland isagoo sheegay in xukuumadda Puntland ay dadaal xooggan gelinayso sidii xal looga gaari lahaa arrintan. Madaxweynaha ayaa ugu dambeyn si rasmi ah u daafuray kalfadhiga 48aad ee golaha wakiilada. waxaa xusid mudan in aanan marna joojin dadaalka xal loogu raadinayo caqabadaha hareereeyay fulinta hanaanka doorashada ee lagu heshiiyey waxaa shirar xal loogu raadinayo arrimaha doorashada ku qabanay Garowe kaas oo ay ka qayb galeen qaybaha ka mid ah madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah qayb ka mid ah mucaaradka iyo qaybaha kale ee bulshada rayidka waxaa sidoo kale safarro ku tagnay magaalooyinka Dhuusamareeb Muqdisho bishii February ilaa iyo March 2021 dhammaan dadaaladaas daba joog ah wax guul ah lagama gaarin nasiib darro dalkii wuxuu galay khalkhal siyaasadeed iyo mid amni kaas oo sababi gaaray in dalku ku laabto burbur muddo dheer laga soo kabanayay waxaa arrintaas sabab u ah go'aanadii sharci darrada ah ee golaha shacabku u codeeyeen 2 sano ee ku darsi ah taariikhdu markay ahayd bishii Abriil 12 iyadoo oo maalin kadib go'aankaas madaxweynuhu saxay waxaa sii socday dadaaladii lagu raadinayay in miiska wada hadallada lagu soo laabto si waddanka looga badbaadiyo burbur ku yimaada nidaamka dawliga ah hanaanka siyaasadeed ee dalka iyo mid bulsho iyo mid dhaqaale intaba dadaaladaas waxaa ka dhashay in laga laabto go'aankii ku darsiga ahaa kaasoo abuuray jawi dib loogu laabto miiska wada hadallada ee xal loogu raadinayo qabsoomidda hanaanka doorasho oo daahfuran natiijada ka soo baxdana lagu wada qanacsan yahay wada hadal aan rasmi ahayn oo maalmo qaatay kadib waxaa suuroobay in madaxda labada heer ay ku kulmaan magaalada Muqdisho muddada u dhaxaysa 22 ilaa 26 May 2021 halkaas oo wada xaajood qoto dheer iyo isu tanaasul kadib golaha wada tashiga qaranku ku ansixiyay heshiiskii 27 May 2021 kaasoo saldhig looga dhigay heshiiskii 17 September ee 2020 waxaa runtii iyadana mudan inaan halka ka tibaaxo arrimaha ku saabsan
qiimo dhaca ku yimid shilinka Soomaaliga oo wali fadiisi ay taagan tahay waxaan dareensanahay wali bulsho badan inay la daalaa dhacayaan lacagta shilin Soomaaliga ah iyo isticmaalkeeda waxaan aad uga mahadcelinayaa guddigii arrinta ku hawshanaa dadaalka faraha badan uu sameeyay sidii uu xal ugu gaari lahaa oo mar walbana uu xalka suuragalka ah ee markaas muuqda uu u qaadan lahaa waxaa dib loo soo celiyay santiyadii markii hore la joojiyay oo iyada naftirkooda ah talooyin ka yimid bulshada oo u arkay inay saaxal tahay waxaan dareensannahay marka uu dhib ku bato in taladu ay u badnaan doonto bal hadbad mid ku dhugo oo ay adag tahay xalka shilinka Soomaaliga ee dawladda Puntland gaarkeed uga gaari karto maxaa yeelay waa arrin heer federaal oo u baahan xal midaysan in dalka Soomaaliya oo dhan uu ka gaaro Maxamed Cabdi Maxamed VOS TV Muqdisho